maanta inaan taagannahay tuulada la yidhaahdo Goobweyn meesha ay isaga daraan badda iyo webigu dhulka adduunyada ugu barwaaqada badan in dadka Soomaaliyeed ay ku ooman yihiin kuna gaajaysan yihiin Ilaahay baa nagu cadaabi doona Soomaaliyay sharaftiina iyo karaamadiina u soo laabta Goobweyn waxay ahayd in adduunyadu ay u soo dalxiis tagto waxay ahayd inay Soomaaliya oo dhan dharjiso waxay ahayd inay ahaato sharafta iyo muuqaalka ummadda Soomaaliyeed meeshii dunida ugu barwaaqada badneed inay dadkeenu ku dhimanayaan miyaanay taariikhdaas mugdiga noo gelin buugta war dadka Soomaaliyeed oo hurdada ka kaca war ummadeena yaanan ku fiirsanin wax war Ilaahay baa dhulkana siiyay Soomaaliyay tusaale ka badan maanta oo aan idin keeni lahay malaha baddii iyo webigii baa halkaa isku daraya kalluunkii baa halkaa yaal biyihii meeshii laga soo saari lahay weeyaan beerihii meeshii laga qodi lahay weeyaan meeshani waa meeshii korontada laga soo saari lahaa markaasaa dadkeenna baaba'siiya qof walbo madaxa oo aan anigu ka mid ahay oo anaan isku xishoono qof walbo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga oo dalkiisa ka hadla u sheeg dadkaad inay sidaas yihiin qof walbo Soomaaliyeed oo aan dalkiisa wax u tari karinow fadlan dalkaada wax ka sheegay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.